wabarakaatu waan salaamay dhamaantiin meel walba aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub hadda laga soo kacay asxaabteeda qaaliga maanta waxaan wadaa skincare routinkeyga iyo waxyaabaha aan sameysto aan ku daryeelo wajigeyga insha Allah iyo timaheyga baan ila wadaagi doonaa maanta kusoo dhawaada muuqaal kale aad xiiso u leh waxaa soo diyaarsaday alaabaha isticmaal laha productiga timaha maasha Allah iyo sunscreen oo loogu talagalay face-ka waxyaabaha face-ka ku daryeelo iyo timahaba haddana skincare-keena ayaa gudagaleynaa insha Allah waxaa soo qaatay silka cool oo qajaar ah wajiga ku scrub gareynaya maasha Allah wajigaagan wuxuu ka dhigayaa mid cajiib oo qurux badan si fiican u scrub gareynaysa wajigu ku liisheynaa wasaqda dhan uu ka qaadaya wuuna ku qaboojinaya scrub-kan aad u jeclaan waan isticmaalaa mar walba wajigaaga daryeel scrub-yada u sameey maasha Allah waji qurux badan hadii aad rabtid more waxyaabaha dabiici wajigaaga amrisid more qurux badnaado muuqaalkan hadii aad ka heshay fadlan like noo dheh subscribe noo saar channelka gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaal walba channelka soo geliyo insha Allah muuqaalkan like-tiisa haday badato routine badan aan idin soo sameyn doonaa laakiin waxa ku xiran tahay inaan like-ta ka arko inaan ka heshay muuqaalkan insha Allah waxaan noo cadeynayso like-ta anagana waxay noo tahay dhiirigelin markii aad subax soo kacdid face wash-kaaga ku dhaqdid face-ka kadib waxa fiican inaad scrub u sameysid ama mask yar oo gacantaada ku sameystay inaad marisid wajigaaga si uu u noqdo waji liishe oo qurux badan sidoo kale maanta waxaan idin wadaagayaa sunblock aan isticmaalo mar walba kareemka qoraxda way fiican tahay inaad isticmaashid insha Allah 5 daqiiqo kadibna waa iska soo dhaqaaya waa ku scrub gareynaya 5 minutes kadibna waa iska dhaqina insha Allah biyo diiran loo isticmaalaya marka la iska dhaqaayo scrub-kan wuxuu ka caawinayaa inuu furfuro ilaha dhan oo wajiga sidoo wax walba aamirisid oo markaas uu gudaha ugu galo face-kaaga oo uu noqdo mid iftiin leh insha Allah si fiican labada gacan ugu massage gareynaa oo scrub gareynaya maasha Allah markaas sidaas ugu dhaqdid wasaqda dhan face-kaaga uu ka qaadaya sidoo kale saliidda uu ka yareynaya face-kaaga wuxuu ka dhigayaa mid yar oo qurux badan insha Allah marka isticmaashid scrub-yada aad u fiican yahay anti aging uu yahay halkan waxaa ku soo diyaarsaday alaabtii jirka ku dhaqan lahaa maanta skincare-keyga ayaa idin la wadaagaya dhammaan waxa isticmaalo sokor soo diyaarsaday sidoo kale waranko multani powder waxa soo diyaarsaday saffron ama saffran sida u taqaanid qoyan iyo huruud iyo waxa shiidan soo diyaarsaday intaas ka sameynaya jirka ku dhaqanaysa maasha Allah jirkana wuxuu kaaga dhigayaa soft oo smooth ah sidoo kale skin glowing hadii aad jeceshahay mar walba isticmaal alaabtan haddana weelkan isku wada geenaya si aad u qasto maasha Allah maanta timaha waxa uu isticmaalo iyo wajiga sidoo kale jirka waxyaabaha ku quruxsado ay idin la wadaagaya muuqaalkan like far badan noo saara si uu u gaaro dadyo aad u fara badan insha Allah haddana waxa ku darsanaya scrub oo laba qaande oo kafee ka sameysan face-ka iyo waxa loogu talagalay iyo badiga maasha Allah wuxuu ku qurxinaya sidoo kale waxa ku darsaday saliid oo huruud ah ama tamrik ka sameysan maasha Allah biyo ku daro waa isku qasaya alaabtana kula jirkaaga hadii aad ku dhaqdeed quruxu kaaga dhigaya uu ku cadeynaya si dabiici ah wasaqdana uu ka qaadaya jirkaaga wuxuu ka dhigayaa mid smooth ah ajactad lahayn insha Allah skin glowing uu ku siinaya alaabtan aad cajiib u tahay asxaabteeda qaaliga jimco mubaaraga idin leeyahay meel walba dunida ka joogtaan maanta waxaa idin la wadaagaya skincare-keyga iyo waxyaabaha uu isticmaalo jirkeyga sidoo kale timaha waana soo codsateen waa codsigiina muuqaalkan like fara badan saara si oo dadyo aad u fara badan oo u gaaro insha Allah had sidaas iskugu qasay muusigaas isku noqday jirka dhan marso markii amristeed waxa ku joogaysaa 30 daqiiqo jirka markuu ku galo kadibna waa ka dhaqaysaa maasha Allah shampoo iyo waxyaabahaas gelina ku dirtid uma baahno scrub-ka isaga jirka dhaqaayo wana xumbeynaya scrub-kan ku daray insha Allah aaduna ku anfici doona maalinta naftaada aad qabatid meel saartid maasha Allah qurux adigna waa jeclaanaysaa ma fahanteen maalmaha dhan hadii aad sii ordaysid arday aad tahay ama qof shaqeynay aad tahay maalinta jimcaha aan sanaysid jirkaaga shaqeey timahaaga jirkaaga maasha Allah isbuuci hal maalin hadaa jirkaaga siisid aad qurxisid maasha Allah tintaadana anytime habeenkii iyo subaxiiba ashan leesid maasha Allah wuxuu ku noqonayaa timo baxa oo qurux badan shanlada aad ugu dadaala routiinka shanladana aad muhiim u tahay sababtoo ah tintaada caafimaad qabkeeda hadii aad rabtid waa inaad shanlada u badisaa habeenkii inta seexan ka hor tintaada shanlay sidoo kale subax marka soo kacdidna shanlay timahaaga waa caafimaadka timaha sare u sii qaadayo wuuna ku baxaya maanta timaha maskaad ma marinayo waxa marinaya biyaha dhageeraha spray-gana lahay
kadibna maanta waan ila wadaagaya muuqaalka insha Allah. Isbareygan sida loo sameeyana waa soo geliyay channelka hore u soo geliyay maasha Allah waan isticmaalaa waa isbarey inaba caadi ahayn hadda waa soo karsanaya marka soo kariyay sidaan quruxda badan ayuu soo baxay cagas buufiska ku soo shubtay timaha uu isticmaali doona insha Allah. tintaada markaa marsidna waa arki doontaa isbareygan si uu uga dhigo strong tin qubad leh oo qurux badan insha Allah. isbareygan aad u cajiib u yahay maasha Allah timaha wuu bixinayaa faster waaye tintaadan wuxuu ka dhigayaa mid aad u baxsan sidoo kale waxa isticmaalayaa maskigan black ee Orayaan saliid waaye markii aan mariyo isbarey kadibna maskigan aan marsanaya 2 saac kadibna timaha waa ka dhaqaaya shaambada isticmaalo sidoo kale nafaqada timaha mariya idin la wadaagi doona muuqaalka hadii ay halahan soo gaartay dhameyso si ay waxyaabo kale u sii faa'iido insha Allah. black maskigan timaha wuxuu ka saarayaa agoolka sidoo kale aflaaqda tintaada hadii bixitaanku ka qayb qaadanaya maasha Allah aaduna kugu qurxinaya timaha. tinta isbareyga markaa mariyo kadib waxaan marinayaa saliida waa black mask waaye Orayaan maasha Allah aad u jeclahay tintana way kala furaysaa mid kale bixidana way ka qayb qaadataa gabdhaha aad timaha inay ugu baxaan jecel aadinay anfacaysaa tinta way ku dheereynaysaa maasha Allah agoolkan way ka saaraya aflaaqda tintaada caafimaad qabkeeda sare iyo u qaadaysaa waxyaabo dabiici ah samaysan tahay waana black gas tinta markii la mariyo waxa lagu joogaa 2 saacadood ugu badnaan 4 saacadood ay ku joogi kartaa maasha Allah. tintaada waxay kaaga dhigaysaa mid strong ah oo dhaqsiina baxay insha Allah. soo tijaabiya alaabtan isticmaala productigan antimiyo isticmaala insha Allah. shaambana way leedahay sidoo kale saliid caadi ah timaha marsadan way leedahay insha Allah. nafaqada isticmaala idin share kareyn doona markii aan ku joogo 2 saacadood kadib waxa isticmaali doona nafaqada samar waaye maasha Allah channelka noo soo geliyay waxtarkeeda tinta u isticmaala tinta ku dhaqda badanaa shaamba ma isticmaalo conditionerka timaha ku dhaqa conditionka wuxuu ka caawinayaa tintaada caafimaadkeeda sare inuu sii qaado sidoo kalena waxyaabaha markaa marista dabiiciga badan waxa fiican conditioner iska dhaqdid shaambada bedelkeeda insha Allah. conditionerka aad u fiican yahay malaba kuna ka samaysan yahay cajiib waaye shirkadan samar aad u fiican tahay insha Allah. nafaqadaas aan isticmaalo waa shaambadaas waxay ka samaysan tahay vitamin E shaambadan aad u jeclahay timaha waa ku dhaqdaa tinta waxay ka dhigaysaa mid xariira tintana way kala furfuray sidoo kale tintaada way jilcinaysaa shaambo waxtarka timahaaga kor u sii qaadayso waaye hoos uma dhigayso bixidana way ka qayb qaadanaysaa productigan aad u jeclahay gabdhihii isticmaalay feedback soo celiyay aad ugu mahadcelinaya gabdhaha isticmaalay insha Allah. soo tijaabiyo productigan aad u fiican yahay waxaan iga helaysaa insha Allah. lambarkan waxaan soo dhigaa qaybta commentiga oo productiga soo saaro timaha insha Allah. soo tijaabiyo alaabtan cajiibka ah hadda inta fiisin nadiifsanaya isbareygan marsanaya oo timaha oo soo buufinaya kadibna soo laabanayna insha Allah. sidaas loo soo buufinaya dadna timaha salka hoos ilaa hoos ku masal kareynaysa strong ka dhigaya timahaaga maanta isbareeya lahay mask ma lahayn isbuuc 2 maalin isbareygan isticmaala maalin waxa isticmaala maskadka dabiiciga ah insha Allah. idinkan inaad tijaabin doontaan warkeenaya isticmaali doontaan gabdhii hore u isticmaalay oo feedback soo celiyada ugu mahadcelinaya kuwa soo celin insha Allah. tijaabiyo sida u aragtiin waxtarkiisa insha Allah. waxa isticmaalaya saliidas tinta caadi u marsanaya subax markaas uu ka caawinay timahaaga shalay waa rutinkeena sidoo kale habeenka seexanaysa tintaada shalay inta aadin sariirta ka hor insha Allah. hadda saliidas caadigan waa isticmaali doona caadi u marsanaya productigaas waa productiga timaha hadda waxaan noo soo haray qaybtii wajiga aan dhameystirnaa insha Allah. hadda isbareyga waa soo marsada saliida maskigan waa marsada alaabtii aan soo tusay oo jirka hadda isticmaalaya qaabka loo sameeynayo waa idin tusay maasha Allah. alaabtan smooth waaye jirka dhan way ku nadiifinaysaa sidoo kale face ka xataa waa u isticmaali kartaa body and face waaye aadayna ku cajabin doontaa insha Allah. marka u horeysa ay isticmaasheed waad ka heli doontaa insha Allah. sida ku cajabsan waa arki doontaa jirkaaga uga dhigto mid iftiin leh oo qurux badan insha Allah. haddana wajiga marsanaya maasha Allah wajigaagana wuxuu kaaga dhigayaa mid iftiin leh wasaqdana uu ka qaadaya sidoo kale dhalaal kugu furaya brighten whiten dabiici ku siinaya maasha Allah. isbuuci hal maalin hadii aad timahaaga iyo wajigaaga sidoo kale jirkaaga u goysid maasha Allah. sidoo kale tinta habeen walba subax walba hadii aad shanaysid caafimaadka sare ay kugu sii qaadmaya waxa kale oo ku sii caawin karo saliidaha shaambooyinka isticmaalaysid inay ahaadaan kuwa tayo leh si timahaaga caafimaad qabkooda ay sare ugu sii qaadmo tintaadana meeshii ay rabtay
inay kuu gaartan iyo kuugu gaarto insha Allah moor ah waxyaabaha dabiiciga isticmaashid moor timahaaga ku qurux badnaado insha Allah hadda waxaa ku joogaa 10 daqiiqo inta 10 daqiiqo kasii joogayna gacmaha sii marsanaya jirka dhan waa soo marsanaya insha Allah kadibna waa isku soo laabanayna sidoo iigu soo baxo quruxda badan insha Allah alaabaha dabiiciga aad waxtar u leeyihiin qofkii joogtayna faa'iidadeeda buu arkayaa iyo jirka sida uu qurxiso insha Allah adinkana tijaabiya marka sidaan u isticmaashid ku scrub garay jirkaaga ma sha Allah wuxuu ka qaadaa wasaqda dhan jirkana wuxuu ka dhigayaa mid iftiin leh insha Allah mar walba waxyaabaha dabiiciga ah isticmaashid moor aan noqotid qof aad u qurux badan sidoo kale xididda aan lahayn wax walba aan lahayn insha Allah hadda waxaa isticmaalaya desire oo vitamin C ah waxa loogu talagalay indhaha hoostooda loogu talagalay madmadowga waxyaabahaas dhan inay ka saarto insha Allah vitamin C na ka samaysan tahay meesha ka heli kartaan lambarka qaybta commentiga aan soo dhigaya insha Allah alaabtan productigan ma sha Allah waa vitamin C ga sidoo kale subax markaa soo kacdid waxyaabaha vitamin C ga aad u muhiim u yahay inaad u isticmaashid face-kaaga si uu kugu noqdo face-kaaga mid aan lahayn anti aging ama ku soo degdegin gabowga sidoo kalena wajigaaga wuxuu ka ilaalinayaa qoraxda ku dhici lahayd ama baaninka kugu sameyn lahayd uu ka ilaalinaya wajiga qoraxda kaama gubeyso hadii aad face ka noqotid laba kalar sidoo kale uu ka caawinaya waxaan ila wadaagayaa serumka vitamin C ga ay isticmaalo insha Allah alaabtan hadii aad isticmaasho productigan oo u bagi doontaa product aad waxtar u leh waayo wajiga wax badan ka bedeli doona insha Allah hadana waxa isticmaalaya waa serum oo vitamin C waaye ma sha Allah aadun u fiican yahay face-kan wuu ku qurxinaya labada kalar face-ku ka biya sidoo kale wuxuu ka ilaalinayaa qoraxda inay baanin kugu sameyso ama wajigaaga ay gubto ay ka dhigto laba dhinac laba qayb oo kale qayb cad qayb madow inay wajigaaga ka dhigto ayuu ka ilaalinaya wajigaaga hal midab ayuu ku noqonaya insha Allah markii aad vitamin C ga isticmaashid madmadowga ka ilaalinaya sidoo kale finanka wuu baabi'inaya عجيب waaye hada waa marsaday ma sha Allah si quruxda badan wajiga uu galaya wax yar marka uu marsanaado laakiin gacanta waa inaad ku massage gareysaa si uu gudaha ugu galo waxtarkana aad u hesho wajigaaga dhan wuxuu ka dhigayaa orange camal ka dhigayaa ma sha Allah wuuna ku qurxinaya wuu ku dhalaalinaya عجيب waaye saacadteeda qaaliga muuqaalkan waqti badan iga galay insha Allah like fara badan iyo saara siini share gareeyo oo la wadaaga asxaabtiina kale sidoo dadyo aad u fara badan u gaaro insha Allah muuqaalkan rabitaankiina meeshuu gaaro ayaa arkaynaa insha Allah asla socona mar walba muuqaalo waxtar leen waan soo galiya kana faa'iideysta insha Allah had waxaan marsanaya waa cream moisturizing wuxuu ka samaysan yahay bariis waxa loogu talagalay maalintii iyo habeenkii loogu talagalay subaxina waa marsadaa habeenkina waa marsadaa ma sha Allah waxa waay cream oo dabiici wuxuu ka samaysan yahay bariis aad ku anfacaya waji qaleel hadii aad qabtid aad ku anfacaya gabdhaha oil ka badan ama isticmaal karaan aan wajigayga dry waaye waxa uu isticmaalayo moisturizing ku siinayo face-kana wuu ku qoynaya insha Allah isticmaala gabdhaha saliida lahayn oo yacni dry-ga ama qolofta ka caawinaya wajiga kareemkan day and night waaye ma sha Allah wajigan wuu galaya dhaqsi u galaya wajigaaga wax walba amrisid ku scrub garee si uu dhaqsi u galo insha Allah kareenkaana markii amrisid ma ka muuqanayo hatta wajigaaga marka ku scrub gareysid ama ku massage gareysid ma sha Allah dhaqsi intuu gudaha u galo oo waxtarkiisana arkaysa laakiin subaxii habeenkii inaad isticmaashid ayaa fiican si aad dhaqsi jawaab fiican uga hesho kareenkan aad u fiican yahay insha Allah wajiga waa iska soo dhaqay waa soo nadiifiyay sidoo kale alaabtii jirkayga waa ku soo dhaqday timihii waa soo dhaqday ma sha Allah aniga dhan sidaas shacni u soo noqday kadibna hadda waxaa marsanaya waa sunblock cream wuxuu ka caawinaa wajigaaga kuleelka inuu ka ilaaliyo dadka make up ka jecel hadii aad tahay arday tahay mar walba isticmaal sunblock uma baahanaysid make up inaad marstid sidoo kale wuxuu ka difaacayaa kuleelka banaanka hadii aad aadist inaad marstid muhiim waaye sidoo kale guriga hadii aad joogtid inaad marstid kuleelka yarka wajigaaga dareemi lahaa ama qoraxda ku dhici lahayd ku bedeli lahayd waxaas dhan uu ka ilaalinaya wajigaaga wuxuu siinayaa moisturizing make up na ma u baahanaysid dhalaal ku furaya iyo iftiin insha Allah sunblock aad u fara badan yahay shirkado badan soo saaray qof walba shirkado iska isticmaala muhiimada waxa waaye cream tayo leh oo sunblock inay heshid oo ku anfacay adigana marka isticmaashid insha Allah hadda wajiga san fiican u galinaya si uu gudaha ugu galo aad u marinaya waxa isticmaala waa sunblock oo skin doctor isticmaalay ma sha Allah aaduna ku anfacaya waxa loogu talagalay waliba dadka xasaasiyada qabo ana allergic face ahay dadka qaba loogu talagalay yacni protection wuxuu kaga yahay qoraxda una ka ilaalinaya allergy hadii aad qabtid aad allergy u leedahay marka qoraxda aad aragto kale wajigaaga uu isbedelayo waa ka fiicnaanaysa insha Allah waana 80 mid isticmaalayo ayadoo 30 waa helaysa ayadoo 50 way jirtaa
sunblock aad u fiican tahay face-kaaga inaad u isticmaashid. Hadda markaa ku scrub gareeyo ku massage gareeyo face-ka dhan wuu galay maasha Allah saas qurux badan noogu soo baxay. haddana jirkii sidaan quruxda badan ayuu soo baxayo iftiin kale maasha Allah tabaarakallah. markaa naftaada qurxisid adiga dhan waa isjeclaanaysaa ma baan dadka intaa la gaarin. insha Allah muuqaalkan like noo saar sidoo kale subscribe noo saar channelka siin share gareeyo la wadaag asxaabtaada kale. haddana waxaa marsanayaa lipstick oo ka samaysan Vaseline and Rose kadibna dibnaha marinaya wuxuu ka ilaalinayaa qolofta sidoo kale wuxuu ka qaadayaa jactadka dibnaha dhan wuxuu ka dhigayaa kuwa pink maasha Allah wuuna ku qurxinayaa mar walba inaad isticmaashid waxyaabaha qoynayo dibnahaaga aad u fiican tahay sidoo kale biyaha cad hadii ay kugu yaryihiin xataa qolofta la isku arkaa waxyaabaha qandhado kale markay qandho jirkaaga jirto waa isku arkaysaa insha Allah mar walba ku dadaal dibnahaaga inaad qoysid sida kugu noqdaan bushimo aad u qurux badan insha Allah. Vaseline-kaas yarkaan isticmaalay Vaseline-ka caadiga xataa dadka qaar marsado waxaa jiro lipstick oo saliid ah oo caadi loo soo gato insha Allah haddaad jeclaan lahayd routine kale aad soo sameeyo igula wadaag qaybta commentiga insha Allah waan soo sameyn doonaa laabtan cajiibka ahna inaan ka faa'iideen waan rajeynayaa productiga timaha sidoo kale wajiga sidoo kale maanta waxaa idinla wadaagay skincare-kayga dhan aan sameysto insha Allah aad u mahadsan tahay muuqaalkan haddii aad soo gaartay guntii gabagabadii waa kaaga mahadcelinayaa muuqaalkan muuqaal lacayna inta aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bye, see you next time.